Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawow kanaalka dhakhtarkaaga. Muuqaalkan waxaan kugu soo gudbinayaa waxyaabaha sababa timaha inay daataan iyo sida loo daweeyo. Dhammayso muuqaalkan si aad uga hortagto inay timuhu kaa daataan. Tinta waxay ka daadan kartaa madaxa iyo qaybaha kale ee jirka, waxayna ka dhalataa waxyaabo badan sida dhaxal ama isbeddel ku yimaada hormoonada jirka iyo xaalado kale oo caafimaad darro ah ama sidoo kale dawooyinka qaar. Bidaarta waa nooc ka mid ah daadashada tinta, waxaana lagu qeexaa marka tintaada u daadato si xad dhaaf ah, waxayna ka daadataa madaxa qaybta hore ama qaybta dhexe. Tinta marka ay daadanayso waxay u soo muuqataa qaabab kala duwan, waxayna ku xiran tahay waxa sababo. Sidoo kale daadashada tinta waxay noqon kartaa mid si tartiib tartiib ah u bilaabato ama mid hal mar bilaabato. Inta aad isku dayin inaad la tacaasho daadashada tinta, waxaa wanaagsan in aad ogaatay waxa sababay, sidaa darteed la tasho dhakhtarkaaga. Calaamadaha daadashada tinta waxaa ka mid ah: Number 1, inay tinta noqoto mid dhuudhuuban, gaar ahaan tinta qaybta sare ee madaxa. Number 2, qayb wareegsan tinta oo lunto ama go'do. Number 3, cuncun maqaarka madaxa. Waxyaabaha sababa timo daadashada waxaa ka mid ah nafaqo darro. Qofka oo cunto xumi ku dhacdo waxay keeni kartaa timo daadasho, tan oo ay ka timaado jirka, waayo fitamiino, borotiino iyo macdano kale oo muhiim u ah korriinka timaha. Dadka khudaarta kaliya ku nool oo aan cunin cuntooyinka borotiinka leh, iyagana way ku dhacdaa timuhu inay ka daataan. Sidoo kale waxyaabaha sababa timo daadashada waxaa ka mid ah daryeel la'aanta timaha. Wax walba oo aan la daryeelin way xumaadaan. Sidaa darteed waa muhiim inaad ilaaliso nadaafadda timahaaga oo aad u dhaqdid si maalinle ah. Waxyaabaha sidoo kale sababa timuhu inay daataan waxaa ka mid ah hidde ama genetic, oo ah inaad ka dhaxasho reerkaaga. Waxa ugu badan ee sababa daadashada timaha waa dhaxalka, waxayna inta badan la socotaa da'da qofka, waxayna ku bilaabataa in tinta ay noqoto mid dhuudhuuban. Sidoo kale isbeddel ku yimaada hormoonada iyo xaalado kala duwan oo la xiriira caafimaad darrada. Xaaladaha kala duwan waxay sababi karaan inay timuhu daataan si ku meel gaar ah ama si joogto ah, waxaana u sabab ah isbeddel ku yimaado hormoonada sida xilliyada uurka, marka ilmaha dhalanayaan ama marka ay dumarka dhalmo gooyaan. Sidoo kale waxaa jira caabuqyo ku dhaca maqaarka oo sababa tinta inay lunto ama ay go'do. Caabuqaas waxaa loo yaqaanaa alopecia areata. Sidoo kale waxyaabaha sababa inay timuhu daataan waxaa ka mid ah dawooyinka qaar. Dawooyinkaas waxaa ka mid ah dawooyinka lagu daweeyo kansarka, kuwa lagu yareeyo caabuqyada kala goosyada, iyo dawooyinka lagu daweeyo xanuunada wadnaha. Sidoo kale walwalka badan waxa uu sababaa inay timuhu kaa daataan. Daweynta timo daadashada: haddii timo goran ama daadasho aan sidaa u badnayn aad dareemayso, si wanaagsan ugu meero shaamboo tayadeeda aad hubto, tiro ku habboonna ku meero, sida shaambooyinka loo yaqaano anti-dandruff shampoos oo ka hortago inay timuhu kaa daataan. Sidoo kale isticmaal shaambooyinka dawada ah oo loogu talagalay ka hortagga daadashada timaha. Ogsoonow, shaambada aad isticmaalayso haddii aad kala kulantid cuncun, iska jooji, iskuna day inaad la kulanto dhakhtar maqaar. Daaweynta mushkiladan timo daadashada waxay u baahan tahay in la saxo waxyaabaha keena timo go'idda, baaritaanna lagu sameeyo, kadibna lagu siiyo dawooyin kor u qaado korriinka timaha sida dawada loo yaqaano minoxidil oo ka qayb qaadato korriinka timaha inay kor u qaado. Haddii aad qaadatid dawooyin keeni kara timo go'idda, waa in dawooyinka lagu beddelaa. Sidoo kale haddii sonkorow uu keeno, waa inaad kontarooshaan sonkorowgaas oo dawooyin lagu xakameeyo lagu qoraa. Sidoo kale waxyaabaha lagu daweeyo timo daadashada waxaa ka mid ah saliid qumbaha. Saliid qumbaha waxaa ku jiro maaddo loo yaqaano fatty acids, waxayna awood u leedahay maadadaas in si toos ah u dhex gasho halka ay tinta ka soo baxayso, waxayna ka hortag u tahay yaraanshaha borotiinada muhiimka u ah korriinka timaha. Xanaanaynta timahaaga ma ahan inaad dawo marisaa ama aad midabaysaa, waa inaad qaadataa cuntooyin isku dheelitiran.
maxaa yeelay timuhu waa qayb ka mid ah jirkaaga sida lugahaaga iyo gacmahaaga oo kale. ugu dambeyn, waxaa muhiim ah in la daweeyo dhammaan xaaladaha caafimaad ee keeni kara timo daadashada. fadlan ku soo biir channelka oo subscribe dheh si aad ula socotid talooyin muhiim u ah caafimaadkaaga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.